بسم الله الرحمن الرحيم مشروعان oo ay fulinayso dawladda Qatar oo lagu dhisay wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxa daafray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ka oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed qaybna ka qaadanaya horumarka dalka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle xubno ka tirsan golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa goobjoog ka ah halka lagu furayay bilaabashada wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooye mashruucaani oo ay ku baxayso 200 milyan sida ku cad heshiiskii hore u dhaxmaray dawladaha Soomaaliya Qatar 28kii bishii November ee sanadkii 2017 waxa uu noqonayaa mashruuc ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyo Soomaaliya muddo ku dhow 30 sano anigoo ka wakiilaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan maanta u joogno halkan dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka Xamar iyo Afgooye iyo jidka Xamar iyo Jowhar waxaan mahad u celinaynaa dawladda Qatar madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono waxaanu mahad celinaynaa dawladda Turkiga oo iyaguna ah dawladdii qandaraaska ku guuleysatay oon rajeynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mid ah jidadka dunida waxaan u hambaleynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeena u bilaabay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay una mahad celiyay dawladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay ku bixisay hirgelinta mashruucan waxaan u mahad celinaynaa labada dawladood iyo hay'adda bixisay iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ka shaqeeyay waqti fiican geliyay una adeegayay bulshada reer Koonfur Galbeed laga bilaabo ex control ilaa iyo Afgooy iyo ka dheer baan jecelnahay in la maanta aad ugu faraxsanahay inaan joogno dhagax dhigii mashruuca runtii aan aad u sugayno waqti badan oo qaybta ka mid ay tahay jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar kaasoo runtii qayb weyn ka qaadan doona horumarinta Hirshabeelle iyo Shabeellada Dhexe iyo gaar ahaan Xamar caasimadda ku xiran runtii aadan u soo dhaweynaynaa barnaamijkaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay mashruucan wax badan ka bedelayo nolosha beeraleyda Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Shabeellooyinka isla markaana uu ku yimid wadajirka dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeraleyda ka yimaada labada shabeel oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonto mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhamaaday shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul maanta waxa idin muuqda iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd la gaari doono horumar intaan ka sii weyn ugu dambeyntii waxaan leeyahay labada madaxweyne iyo dhammaan dawlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ka soo jeeday ee gobolka Banaadir iyo dhammaan ciidamada iyo cid walba inay garab istaagaan shirkadaha dhisaya jidadkaas dhismaha wadooyinkan ayaa waxa ku guuleysatay kadib tartan ay u gashay shirkad laga leeyahay wadanka Turkiga taas oo maanta saxiixday heshiiskaasi ka ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka qorsheynta wasiirka howlaha guud iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalka wasiirka howlaha guud ee guriyeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Aadan Hooso ayaa u mahad celiyay dawladda Qatar oo fulinaysa mashruucan iyo shirkadda laga leeyahay wadanka Turkiga ee ku guuleysatay dhismaha wadooyinkan runtii sharaf bay inoo tahay kambaniga ku guuleystayna waa nala joogaa waa kambani Turkish ah
maanta ayuu saxiixii dhacay isla maantana daahfurkii shaqadii baa bilaabanaysa hadduu ilaahay idmo. mashruucan maanta uu daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maalgelinayso boqortooyada Qatar ayaa ka turjumaya xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya dowladaha Qatar iyo Soomaaliya. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.